السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة برنامجك عافيماتك maanta waxaan ka hadlayaa fiidiyogan kooban dhabar xanuunka waliba dhalinyarada ah maxaan ku waxyaabaha ku sababa dhabar xanuunka dhalinyarada daada dhexaba waayo dad fara badan ayaa ama soo weydiiyay dhabar xanuun marka waxyaabaha ugu badan oo tusaale ahaan oo kale halkan waxa ku haya ayadoo tusaale ahaan oo kale halkan waa dhabarkii waa lafihii dadku hadda jeer waxay ka cawdaan dhabar xanuunka ay ka cawdaan oo qofku uu leeyahay dhabar xanuun baa ka cabanaya marka dhalinyarada aan ka hadlaya fiidiyogan waxyaabaha ku soo dhabar xanuunka number 1 waxa ugu badan ee ku soo dhabar xanuunka waxa weeye waa iyaga waqti badan fadhiya tusaale ahaan oo kale qofku xafiis buu shaqeeyayo kale ama shaqo ka shaqeeya fadhiga lagu shaqeynayo qofkii wuxuu shaqeynaa 8 saacadood 10 saacadood kale aanu wax nasasho qaadanin waqtiga badan ee qofku fadhiyo waxa weeye waxyaabaha ugu badan ee ku soo qofku in dhabar xanuun sameeyo ku sameysmo talabaad ee kale waxa weeye qofkii oo aan shirkiisu fiicneen tusaale ahaan oo kale muruqyada dhabarka oo kale ama muruqadiisa qaybtan caloosha ama abdomenka muruqadaas oo aan adkayn oo aan strong ahayn taasina waxay ka qayb qaadataa in uu qaybtii dhabarka ee laftii dambe ee imaka shape-keedu ahaa inuu shape-kii ka lumo qofkii uu dadana uu ku soo ismo dhabar xanuun marka waxyaabaha hadii jeer dhabar xanuunkaas oo kale ama qofku hadii jeer imaka dhalinyaro fara badan oo kale dhexe waxay sameeyaan gymka oo kale sports bay sameeyaan hadii jeer waxay si qaldan u qaadaan marka biraha ay qaadayaan oo kale kulli biruhuna waxay leeyihiin si loo qaado mar haddaan dhabarkaagu aanu adkayn oo aanu strong ahayn waxa si easily ama ku fudud qofku ku sameeysa in ay dhabar xanuun bir si qaldan u qaaday ay dhabar xanuun kugu sameyso hadii jeer mar alaale iyo marka dhulka wax ka soo qaadaysana ha qalloocin dhabarkaaga ha isticmaalin dhabarkaaga qalloocisto oo soo foorsto wax soo qaado mar kasta waxaad sameysaa aad dhulka wax ka soo qaadayso ruugaaga isticmaal jilbaha isku laab kadib wixii soo qaad si fududna waad soo qaadaysaa marka waxyaabaha hadii jeer oo qofku sameyn karo physiotherapy ahaan oo kale ama jimicsi ahaan oo kale uu sameyn karaa oo waxa weeye waxyaabaha inuu qofku mar walba muruqadiisa dhabarka ay ahaadaan muruqyo strong ah aad iyo aad ay uga qayb qaadanaysaa inuu qofku dhabar xanuunkaas uu ka raysto marka inta soo koobiya clip kan yar waa inoo iyo quality dambe